heestaadii hadda u dambeysay waxay samaysay saamayn fara badan meel walba waa la hadal hayaa nin dhallinyaraha kale aad ku weeraraysa dadka qaar baa yiri dadku siyaabo kale u dhigeen bal adigu afkaaga noogaga dhac heestaanu maxay salka ku haystaa yaadse ku weeraraysa وبرنامج كلام كورة يسألنا حديقها الصومالية فانكي سوانت كوعة بحي ميت كمدة وبرنامج كيني عادين بدنا نقص ويسين بدنا عندنا البنيسين طلبات كانوا وحى مرتين وقوعة شخصي مالمحان ودم بيسي يوايه لو يدبا قلقلية مسرحية الصومالية وحد يسوي ديني سامواكما واحد كتقانان واحد كبضنا يدكو غانجون ترى سكو بلابا واشان يلواتين جر نروشو هادا يو عصوب تاهي لوان أيو قورسدي waxa uu guursaday gabar naftu ay u dhaxayso oo Soomaaliya gobo intaas waxa uu dheer waa ganacsado weeye oo muusiga kaliya iyo fanku ma dhex jira waa ganacsado doonaya noloshiisa in uu horumar ka geysto riyooyinkiisana uu ka dhabeeyo muusigiina dhinac buu ka wataa ganacsigiisina dhinac buu ka wataa waa gabyaa weeye wuxuuna ku gabyaa af Soomaaliga waayahan dambana aad iyo aad ayaa loo hadalhayay waxaana jira shakhsiyaad ay markaas isku dhacsan yihiin oo ay hawada isku mariyaan markaas qoraallo iyo fartiimo dib ayaanu ku ogaan doonaa waxaasoo dhan shakhsigan ayaan jeclayn inaan la soo dhaweysaan waa maxamed amiin faarax oo aad si fiican u taqaanaan aan jeclayn inaan soo dhaweeyey stuudiyaha nairobina ku sugan haatan oo aan waraysigan la yeelan doono maxamed aad iyo aad baan kuu soo dhaweynayaa هذا وين عبد الحافظ وسلامي ولكن هذه انت الصوماليه انت مسلمه مده الصوماليه مروا قدمت عليك جواب سلامي يا ثانك يو وقرتي مقع اد قروح بدن با لهداي محمد امين لكن شاشد مقع كلا كوغو قرنو ستيج كعانا ku tahay xaguu ka yimid magacaas google hada ka fiiriso waa wax maaragtay wax lagu wareeri intaantay wheezing amal hawada kula bedelanto ama waxa adiga tabar u heli kara ma fahanto marka kulay high school ugu baxay waa magac unique oo ana asleeyahay maanta uu ku suud gareynaya waa gartay waxa tiri waa ku suud gareynaya haddii aad noo ii qalmaayo af Soomaaliga dabcan marka maadaama magacan uu ku qalmo muxuu kuugu qalmaayo isleedahay alleelahe magacaan iyo personality-gaaga way isqaadan karaan horta niyahow cabdixaafidow dadka inta badan ay yaqaano waxay yidhaahdaan waxay nuu qaadatay biloodin ama sanad oo kale inaan ku barano ama noloshaada soo dhex galno mid waxay ka tahay inay malaynayaan inaan wax Soomaali aqoon mid waxay ka tahay inay malaynayaan inaan ahay nin kibir badan bas intaas oo dhan waxaa ka duwan oo beeninayo wuu jiraa qof bini'aadan ah oo inay hadal loo bilaabo maahane ase hadal bilaabeynin oo ilaahay afkaagad u dhaliyey ama maaragtay afku xoog la-aan ahayn u fahantay gartay marka magacayga high school waa taqaanaa I was the bully guy no wanaagsan ma ahayn so hip hop music bala iska dhigi jiray waa taqaanaa so ha marka kulay magacaas halkaas u kiimid magacayga dhabtaa waa maxamed amiin faarax wali aabahey baxeen magacaana aa wato oo wisbi ah kulay nin walba stage name u leeyahay waa gartay si fiican u gartay marka hore iyo golow aniga iyo daawadayaashaydaba iyo taageerayaashaada in aanu ku hambalyeeyno adiga iyo dumaashaday marna walaashay guurkan cusub ilaahay inuu idinkaga dhigo mid aad isku waartaan bashbash iyo barwaaqo gabar Soomaaliyeed oo sharaf iyo karaamo leh min dhalinyarada Soomaaliyeed 25 jir waa xilligii raggu ay guursan jireen oo saxda ahayd ka horna waa la guursan karaa kadibna waa la guursan karaa laakiin
aad baan kuu soo dhaweynayaa jacaylkiinu xaguu ka bilowday saaxiib horta niyahow nimay jacaylku isku wanaagsan yihiin ma ihi haye ilaa jacaylku waa af soomaali moogtahay horta ninka ragga ah 25 ilaa iyo 35 isku ugu madax fudud weli waa dhalinyaro fahanta si fiican waxyaaba hore iska jiray inta ka baax kahelitaan hore iyo jacayl meel la iskala dhacay iyo wax walba dee moogta calafka ka weyn aad iyo aad wixii waxaan u arkay inay tahay dadkii maalmahan dhalinyartii soomaaliyeed gabdhihii iyo wiilashii inay noqotay social media ikeen hala i barto aan kala tagno marka wixiba waa u gooyey soomaalida la aqaanaa raadsaday maahan inaa caynayo dadkayga soomaaliyeed inaa caynayo laakiin social mediahi abriyahan waxaa noqotay aan isbarano kadib aan kala tagno si maaragtay controversial aan ku noqono marka anigoo tii ku daalan maaragtay inta ka dhac leh xaaskayga qaarlaasiyo xilli wanaagsan aan ishelnay halkaana ugu sheegayaa nasiib baa leedahay mid kale kaa dabaaamayso waxaan isku baranay snapchat isku baranay anigu nin shukaansiga aad ugu wanaagsan meeyey waxaan ku yiri gabar yaroo iska xijaaban waa taa hadda ka hor wiiri moogtahay midaan buurnayn oon ballaarnayn dhaxyaroo caata saas aan ahayn waalidkeedna adeecsan ma fahamti waa gartay gabadhii waxaan ku yiri gabar waan kaa helay haddaad boyfriend leedahayna waan ku blogaraynayaa haddaba ii sheeg ma fahamti nin masayr badanaa tahay yaa may wala yani like maba saaxiibi karno ana waxaa aaminsanahay ninka ragga iyo gabar inay saaxiibi karin sax waay aad weyn marka waxaan ku yiri haddaad xiriir leedahay anigu ninkaa helaahay ii sheeg halkaa baan ku ekeynaya ma fahamti oo adigaaba dadkii horaa waxaa leedahay warkaaga caddaysee aad weyn dee oday soomaaliyeeda tahay waxay tiri niyo qorshe kale ma jiro like can we be friends markaasaan ku yiri maya kusoo daalay waxaa waa la diiday ma fahamti kuguma socon waxaas anigu guur baan doonayaa girlfriend baan doonayo then waqti dheer kadib xalaashayday noqotay ilaahna mahad iskale maasha allah waxaa kaloo igu maqaalo ah inaad rabtid intaad nooshahay in aad nolosha wada qaybsataan oo ay go'aankiina ku jirtay markii hore in aadan mid kale ka daba keenin aad nafta ag dhigtid arrintaas iga war saaxiib xiise gaaray leedahay arrinkaas xiise gaar buu leeyahay aniga 23 caruur ay la dhalatay allah deysto qaarkood isgaran mayno odayga aabbahay ahaa xaasas badnaa maasha allah ilmana ilaahay uu siiyey marka waxaan dareemi karaa ilmo kale hooyo ah inta uqdada ay isu qaadi karaan ilmo la kala tiritigareeyey hooyo loo eexday hooyona laga tagay aan dareemayaa aniga taas dareemi karo ma fahmaysaa mideeda kale generationkan hadda ay joognana waxay u badan tahay waad aragtaay 87% waa single waaye marka waxyaaba badan baa doonayaa inaan proof gareeyo oo maaragtaay nolol ahaanteyda ani ahaanteyda aan isku proof gareeyo inay dhici karaan oo dhalinyarta ay aaminsaneen inaysan dhici karin saaxiib allah isku barakeeyo go'aan adag weeye go'aan nin weyn weeye caruurtaada haddaadan u rabin inay noqdaan kala aabbo iyo kala hooyo inay noqdaan waa wax wanaagsan weeye ilaahay isku kin hayo commitmentigaas iyo wanaaggaas aad sheegaysid waxaan jeclahay isagoo taabo galayoo 15 sano 20 sano kadib weli aad garab joogtaan oo ciyaal yaroo qurxa badan idinla jooga maasha allah ilaahay isku daayo saaxiibkood
واي قبل يرو قبل حجاب فنان باتهاي فنانات كلا محاو قرسون دتك قار لهايان قار waxay dhahayaan gabar xijaab qabto guursaday diinta say isku tihiin marka والله hortani yahow abdi xaafidow dunida maanta aynu joogno anigu waxba kama ogi dawli waxba kama ogi cunka halkaa ku dhashaa ahay laakiin waxaan wax ka ogahay oo aan ogahay diintu ilaahayna baray ee nagula soo barbaariyey ee ah inaad qof bini aadan ah dembigiisa adiga horta lagu saarayn ma fahanti ilaahay dembiyada waa cafiyaa intaan ka ahayn shirki anigu waa heesnaa rag baa nagu horreeyo heesay maybe 1 2 3 inaan basbaas xoogaa ku darsanay generation ahaan laakiinse ani ahaan midaan qabo waxay tahay phobia aan qabo waxyaabaha ana aan samaynay that person ugu arkay inay xumaato tahay in qofka asaga uu qamiis ku dhex jiro maaragtay dark side haddii la fiiriyin uu ka mugdisan yahay qalbigiisa uu ka maaragtay he did a lot of things qamiiskaasna uu garsiinayo adigana kufiidan iyo hairstyle lagu xukumayo aada weyn aad iyo aad waa gartay waxaan jeclay inaan wax kaa weydiiyo 25 baa jirtaa xaas baad leedahay haddana waxaad tahay ganacsade dukaan weyn oo ku yaala xaafadda islii oo dharka ragga lagu iibiyo noocii ugu dambeeyey oo ay ka mid tahay funaanadda hadda xiran tahay oo designerka adigu aad designer galaysay baraf design oo dhaho warkeedaysi horta niyahow fankeena soomaalida marka la dhaho aroos haysto iyo inaad maaragtay show qabato maahane muusigaaga platform laga gatay baawur ferrarina kama gadanaysid mansion kama dhisanaysid waa sidaan u aragnay martaa laakiin generationka hadda jira siday aaminsan yihiin because wax walba ma baa la fahmaa soo mogi aniga ahaanteyda waxaan fahmay inay side hustle ay wax wanaagsan tahay oo qofka biniaadanka uu leeyahay waxyaabo ku tashan karo ana carabkayga maalay marka hore gacanteyda haddana haddii la ii shaqaynayo ama aniga aan shaqaysanayo oo shaqo gooni aan leeyahay studio timekayga maahan timeka aan freega aan shaqaysanayo waxaan u arkaa haddii dhalinyaro kale oo ayagana arkaayo oo igu dayanaya haddii ay jiraan inaan wax wanaagsan samaynayo oo beri qof meel kusoo orda leh aan aha waa gartay funaanadan iyo dharka kale aad iibisid ma jumla u iibin kartaan oo u iibisaan mise tafaariiq baa u iibisaan mise labadaba horta hadda weli jumla ma u iibino order baa bixinaa laakiin qof funaanadan u kale qofka wuxuu dalbadaa loogu soo qoraa DHL meel walba waa geynaa saaxiibeel waa maqlaysaan dukaanka iyo dharka lagu iibiyo iyo kabaha casriga kuwa hadday ahaadaan trainers iyo kuwa kalaba xoogaa yar baan video laga tusay dukaankiisuu yahay dukaanku waa camiran yahay dhammaan reer nairobi reer bombasa soomaaliya africa mar allaala markaa nairobi tagtaan ama qof tagay aragtaan dukaanka saaxiibkee maxamed amiin taga shopping kasoo samaysta hala istaageera hala isgarab siiyo waa fanaan da'yar reer dhisaya haddana doonaya side hustle waxa weeye shaqo kale inuu ku garab wado oo noloshiisa meel ka soo saaro saaxiib waan ku hambaleynayaa gabayga soomaaliga see isku tihiin saaxiib adoo raab garaynaya waa ku aragnay bal gabaygii iyo dhaqan baa waxaan u lahayn dib noogu celi horta dad badan oo hadda daawan doono amaba i yaqaano personal ahaan i yaqaano ma malayaa inaa af soomaaliga yaqaano mugtaa cabdixaafidow secondary schoolka markaa baranayay music markaa bilaabi rabay ee maaragtay isku dayay inaan wax qoro waxay ahayd second year ahaa high school asase waa xilli ingiriis aan qori jiray and then mid ani sanad iga horreeyey wuxuu soo qaaday heesta waxuu soo qaaday mugtaa heesta wax fiiriyey ma lahan like meel may gaarin dadka isku maydayin xataa inay fiiriyaan markaan buug idil oo aan qorayay sanad barkiis aan qorayay baan godgeliyey
أنا في Soomaali qoraa bilaabay Soomaaligii marka waxaa is weydiiyey sideed wax ku qortaa dadka North Eastern joogo lahjad bay leeyihiin Soomaali weyn lahjad bay wada leeyihiin ma fahanti accent-gaada sid ku bedeshaa sideen Soomaaliga ugu heesi kartaa buugaag baan bilaabay markii aan akhriyo wiilwaal iyo Cabdillah Xasan iyo Sayidka iyo Laaraxmo buugaag baan bilaabay inaan akhriyo ma fahmaysaa and then Soomaaliga accent uu iga baxay marka waa iskeenay waxaan ogaaday erey walba ereyga North Eastern waxa laga yiraahdo Soomaali wax laga dhihi karo ma fahanti and that's how Soomaaliga aan ku saxay dad badanna ma ogo inaan maartaa xitaa geerarka ama gabayga aan ku tuurto bal hal gabay kaga soo tuur saaxiib aan ka yaabinay take your time gabayga waxaan u tirinayaa xaaskayga Roodo waxaan leeyahay cad baan tagay carab la saaxiibay heesaha galbeed iyo tartiracaan wada maalnay aynigaadoo kale weli ma arag cagawadaad leeyahay calafkaaga ee baahaye caawgamay raacay ما شاء الله صاحب وكم بلينا دمشق مرة ولا شيء غير روان بلينا and she deserves more than that believe me and الله يسكن دايم صاحب الوفنان كيو الريو حاسكي سوق قبيي رابان كل قاني ننكو وجيه بدن بولي هاي يعني لقول دقدقين وهو جدا and واقرتي صاحب haddaan u soo degano gabagabadii aan ku jirnaa waxaa jirta heestaadii hadda u dambeysay waxay samaysay saamayn fara badan meel walba waa la hadalhayaa nin dhallinyaraha kale aad ku weeraraysa dadka qaar baa yiri dadku siyaabo kale u dhigeen bal adigu afkaaga noogaga dhac heestaanu maxay salka ku haystaa yaadse ku weeraraysa hadday jirto horta niyo waxaa la yiri libaax niman aqoon baa lax ka rida ma fahanti waa gartay qaladaada iga galay iyo waxyaabo personal way iska jireen oo na social media aan dhex imaan heestaas maaragtay dadka ay wareejinayaan way jirtaa dee waa canaan walaalka hadduu ku canaananayo waa inaad qaadato mugta yaa ku canaananaysa marka والله نينكي سومالي ما أرتاي إنه أصير كسرته إنكو أنا You've been diplomatic هذا. واقر. قاونا بوساي لو مالي مقطع. دو مت قوية ولا دوسو مت كاسبر دوسو اللي مقطع. صحيح. نينكي سومالي إنه يسير كسرته هذا كسرته بقولال كلمة كسر وذا. waxaa jira dadka qaarkood ay leeyihiin anigu ma ogi xaqiiqatan laakiin qoraallo i soo gaaraya waxay sheegayaan nin dhallinyaraa oo youtuber ah oo khiyaar ah inaad isku dhacsan tihiin oo marka heestu sidaas ay ku leedahay qoraallo text messagena aad isku dhaafsateen xoogaa canaan iyo hadallo kulula maxaa nooga sheegi kartaa arrinta ana social media saas uguma bandhigay heestaa markaa soo saaray unbaa waxbaa laysoo diraa waxna waa diraa kolley ninkii cadaawada inaga dhexaysana wuu isgaranaya ma fahanta caay personal ahna iguma mudno ammaanna aan uga xishoonayana iguma mudno waxbuu qoraa qofka asaga ah ana waxbaan qoraa marka waxaan halkan ka leeyahay good luck waa gartay obviously waxaa weeye iskuma fiiclidiin sida hadalkiina laga dareemayo laba nin oo dhallinyaraad tihiin xirfadlayaal ah inaad waxaa isku haysataan meel iska dhigtaan oo haddiina istaageeri karinin isnabadgelisaan oo aan heeso iyo maxaa la dhahaa qoraallo aan hawdana isku marin ka warran arrintaas ayada kolley ayadana consequencekeeda leedahay nin walba waxbuu tabanayaa mogtahay sax waaya nin walba waxbuu tabanayaa marka دور لو قف لو ترجل سدح مقعد موقته واقرت waxaan leeyahay qofkii maaragtay xagayga ka socdo waan kaga mahad celinayaa balse shaqada aan wata aniga hala ii daayo
construction baa ii socdo shaqaa ii socoto shaqayda la idaa leeyahay waa gartay gabagabadii dadka qaarkood waxay leeyihiin waxaa la isku haystaa wax kale ma ahane qof walba wuxuu rabaa inuu dominate gareeyo stageka iyo heesaha marka waxba la iskuma ogola aduu shaksi baa tahay ninkaas waa shaksiyaad kale fara badan baa jira maxaa loo waayey inuu qof walba dhinac aado oo wixiisa qabsado oo la isku mashquulinin haddii la iscafin karo la iscafiyo la walaaloobo oo la istaageero arrintaas in la sameeyo ma kuu muuqata oo laga odayeeyo horta cabdixaafidow dhaliya haddii kala go'aysa dhul baa kala go'ilaa ma fahanta aniga iyo ninkii aan ishayno maanta meelun bay guush u dambaynaysaa mugta maskaxdaada yareed waxaad ka keenta unbaad meesha lasoo istaagaysaa marka let's do this as diplomatically aan ku dhamayno gacan laysma gaarsiinin dhiig lala daadin maayo waa hadal wey nihow waa kugu ixtiraamaya ra'yigaaga iyo fikirkaaga waxaan anu walaalkaas kale aqoon iskuma lihin dushaas videoyashtiina ka arka maahane weligee lama xiriirin oo weligee lama hadlin oo ismaanaan maqal intaan ka arkay wanaag unbaan ka arkay iyo nin dhallinyaraha daniisa ku mashquulsan adigana nin dhallinyaraayo guur iyo reer iyo ganacsi ku jira iyo muusig baa tahay waxaan ku dhiirigelinaynaa insha allah waan ka weynaa labadiinaba waa hubaa inaad istaageertaan haddiina istaageeri karinina qoraalkiina iyo farihiina iyo maxaa la heesihiinu aysan isgaarinin istaageero ugu dambayntii saaxiib fursad waxaan kuu siinayaa dadka ku taageera dunida daafeeda jooga maxaad jeceshahay inaad ku tiraahdid iyo kuwa annagana daawo channelkeena ku xiranba maxaad oran lahayd oday soomaaliyeed oo gabyaaya maadaama aad tahay horta midda koowaad waxaan leeyahay oo ani ahaantayda niyadeyda aan ka leeyahay aniga intaa jiro weligay soomaaliya ma tegin waddankeena nabad allah nooga dhigo amiin waddankeena allah inuu nabadeeyo qalbiyada soomaalida allah isu furo adduunku way tegeen vision 2050 laga la qorsheynayaa annagana allah na tuso inaan maaragtay waxgal aan leenahay saas baan leeyahay waa gartay khiyaaray waraysigaas intaas ayaanu jeclaynaa kusoo gabagabayno xiddigan da'da yar ee ganacsadaha ee gabyaaga ee dhowaan guursaday ee doonaya inuu nolosha mira ka dhaliyo riyooyinkiisana uu soo bandhigo aad baan ugu hambaliyaynaynaa waqti aan nala qaadanayna waa uga mahadcelinaynaa 100% waxaan jeclahay oo kale inaan u mahadceliyo cabdulqaadir koronto oo asaga la'aantii barnaamijkan uusan suurtageli lahayn sidoo kale fanaanka weyn ee xasan gantaalna waa u mahadcelinayaa walaalkay maxamed amiin oo u mahadcelinayaa 100% waxaan kaloo halkan hambalyo iyo salaan uga dirayaa dumaashadii marna walaashayga yar hoodo sharaf iyo karaamaa leedahay horey u socda ayaanu leenahay intaas ayaanu jeclahay inaan kusoo gabagabayno fikirkiina iyo ra'yigiina halkan hoose ayaad noogu soo qoraysaan waxaan idiin rajaynaynaa guul iyo gobonnimo asalaamu calaykum waraxmatullah